aad uga fahmay in aan horey aanu arkin taariikhda Djibouti oo qoran af Soomaaliya ku qoran oo ahayn wixii aan ku maqli jirnay sheeko aan maqalno mooyaane inaan ka faa'iideystay in ururada Djibouti saabka soo dhisnaayeen oo aan ka ogaaday xitaa sheekooyinka qaarkood kamid ahayn sida Ali Caarif oo kale inuu ku dardaarmay in xarbi inuu yahay midi laba afle oo daabkan marba ninkii gashadaa isticmaali karayo oo si fiican ugu baahayay in qoraaga buuga qoray inay Ali Caarif iyo aqoontiisii iyo habkii wadanka u soo dhisnayd maxaa systemkeedu waxyaalaha badan ka sii fahmay waxa ahayd inuu xabad odaygu ugu tilmaamay ilaa iyo bilowgii Djibouti halka ka timiday habkii loo dagay habkii u soo dhisnaayeen ururada muxuu ahaa Djibouti u soo dhisnaayeen kuwa macaaridka iyo kuwa maxaafidka oo aan aaminsanaaba Xasan Guleed inuu ahaa ninka u soo dhintay muxuu ahaa xukunkii Djibouti aan ka akhriyay ugu dambeyntii inuu ahaa nin dhexdoo ka qabsaday inuu ahaa system dhisnaa uu dhexda ka soo galay oo aan shuqulba ku lahayn gobonnimadoonkii Djibouti habkii u soo dhisnayd oo ahaa nin dhexda ka soo bilaabay inuu ahaa yaa ka ogaaday waxyaalo badan oo aan hadda soo koobi karin baa kamid ah taas kamid ah bismillaahi raxmaani raxiim buuggan anigu inkastoo aanan dhammaystirin intaan ka akhriyey waxa uu daahfuray buuggaasi taariikh aad u fara badan oo dadka reer Djibouti ay lahaayeen oo ku saabsan xagga gobonnimadoonka iyo halgankii dheeraa ee loo soo galay ma garanaysaa xornimada ku saabsan ayaan ka akhriyey runtii waxyaabo aad u fara badan oo dadka dhaxal u noqon doona haddii ilaahay yidhaaho reer Djibouti ama dadka Soomaalida ee afka Soomaaliga ku hadlaba waxyaabo badan oo dhaxalgal u noqon doona ayuu buuggaasi ka hadlayaa oo qoray muxuu ahaa Allah u naxariistee muxuu ahaa qoraaga buugu waxa kale oo aan ka akhriyay yacni siyaasadihii gumaysiga Faransiisku kula dhaqmaya dadka Soomaalida ee ahaa qayb iyo xukun iyo inuu barkood ku adeegsado barka kale ayuu ahaa waxyaabaha ma garanaysaa aan buugga ka akhriyay runtii ma aanan dhammaystirin laakiin anugu inta ugu horeysa ayaan maaragtay waxyaabaha caynkaas aan ka fahmay assalaamu calaykum waxa kale oo aan buugga ka fahmay waxa ka mid ah in maalintii ay gaadhay in gobonnimadoonka Djibouti la soo dhammaystiro in ay dhacday in ay heshiiskii ku gaadhaan niman kale oo ay ka mid ahaayeen madaxweynihii Siyaad Barre ka mid ahaa in lagu dhameeyo Djibouti in ay gobonnimo shuruud leh lagu xidho oo 20 sanadooda sida taas oo madaxweynaha Siyaad Barre Soomaaliya isagu dan ugu jirtay oo kala daadiyo oo nidaamkii nimankii ay u soo dhintay ama u soo baaba'ay in xarbi iyo ninkan qoraaga buugga oo ka mid ah laftigiis in la afbaroojiyo oo ay nidaam qabiileed lagu qaybiyo wax oo ay la lumiyo tii ahayd gobonnimadoonkii Djibouti ee aan qolo ku dhex jirin ee cid walba ku jirtay la joojiyo taas oo madaxweyne Siyaad Barre isagu lambar 1 uu ka ahaa nimanka ka dambeeyay Xasan Guuleed iyo koox wataanay raalli uga haayeen waxaan macnaheeyaa gumaystu dadkiisu u galay dadku indhaha ka soo saaray dadku uu laayay waxa weeye manaxe Faransiiska la sheegay xagan manaxe ninkii gumaystaha sidii dadkii u laayay ka mid ahaa Janaale Cabdiraxmaan Cabdoole rag ka mid ahaa gobonnimadoonkii uu indhaha ka soo saaray u googooyay marka buuggani taariikh ahaan wuxuu xasuusinayaa dadka reer Djibouti inuu gumaystu ahaa manaxe intaasaan anigu aan ka fahmay buugga inuu yahay buug taariikha inuu yahay buug ka sheekeynaya taariikho badan dee ninkii doonayaba ha akhristo waxa weeye buug taariikh ka hadlaya taariikhdana waxaad ka heli doontaan taariikho badan oonay dad badan aanay ogeyn marka waxa weeye manaxe waxa weeye taariikh aan la ilaawi karin waa siduu gumaystuhu inoo baabi'iyey inoo dilay calankan maanta lagu faanayo amba lagu faraxsan yahay dadkii u dhintay dadkii u halgamay ayaa taariikhdeedu ku jirta waa mahadsantihiin